waxaa geeriyooday nin faqiir ah muusan ahayn mid dunida ka milkiyey waxaan ka ahayn akhlaaq wanaagsan xaaskiisana wuxuu uga tegey 2 carruura axmed waa wiilka ugu weyn carruurta uu ka tegey da'diisuna waa 5 jir wuxuuna xifdisanaa qaar ka mid ah aayadaha qur-aanka waxaana baray aabbihiisa wuxuu kaloo ka tegey aabbahaasi faqiirka ahaa gabar la dhaho Shaymaa da'deeduna waxay ahayd 1 sano maalintii tacsida axmed wuxuu maqlay dadkii tacsida ka soo qayb galay oo wada leh qoyskani halkee bay ka keenayaan cunto axmed waxaa aad uga sii murjisay oohinta hooyadiisa waxayna xambaarsanayd walaashiisa Shaymaa waxayna ku lahayd waan dayacannay isla markiiba axmed wuu istaagay wuxuuna hooyadiisa ka qaaday walaashiisa wuxuuna ku dhahay waxba ha ka cabsan walaasheeda Shaymaayey maxaa yeelay ilaahay nama dayacayo marnaba markii ay dhammaatay tacsida kadib axmed hooyadiisa waxay si murugo leh ku tiri 1 sano kadib waxaa waajiba inaan ku geeyo madaraso arrinkaasina wuxuu u baahan yahay lacag mana garanayo sidaan u dabarayo xitaa ma garanayo sidaan u dabari lahaa cuntadaan cunayno qarashkeeda axmed wuu dhoola caddeeyey wuxuuna habsiiyey hooyadiisa wuxuuna ku yidhi 1 jumlad oo keliya oo ahayd allaahi nama dayacayo geeridii aabbahood waxaa ka soo wareegatay 1 bil gurigoodana muusan soo gelin 1 qof xitaa si uu ogaado xaalkooda axmed hooyadiisa wuxuu u soo jeediyey fikrad ah inuu shaqaysto si uu u galo madaraso walaashiisa iyo hooyadiisana si ay u helaan waxay cunaan balse hooyadiisa way ka diiday arrinkaasi waxayna ku tiri hooyo weli waad yar tahay lacagtaad soo shaqaysana nama kaafinayso waxaa la gaaray xilligii uu geli lahaa axmed madarasada hooyadiisa waxay ku geysay madarasada lacag ay ka heli jirtay dharka ay u dhaqdo deriska axmed wuxuu galay madarasada wuxuuna kala kulmay saaxiibadiisa jeesjees badan dharka uu sito darteed iyo buugaagta uu gacanta ku sito waayo ma uusan lahayn boorso uu ku rito buugaagta balse ihtimaam ma uusan siin jirin hadalladooda sanadkii 2 axmed hooyadiisa wuxuu kula taliyey inay dubto rooti dhexda laga gelinayo salar ama ansalaato si uu ugu qaado madaxiisa kadibna ugu soo iibiyo magaalo deris la ahay tuuladooda maalintii 1 axmed wuxuu soo iibiyey rootigii oo idil maalmo kadibna wuxuu helay macaamiil badan oo ka iibsata axmed wuxuu ka dalbaday hooyadiisa inay badiso rootiga ilaahay idinkiisana axmed wuxuu ku guulaysanayay madarasadiisii sannado kadibna madarasada waxaa ku soo biirtay walaashiisa ka yarayd ee lagu magacaabayay Shaymaa wuxuuna kula noolaaday hooyadiisa iyo walaashiisa nolol wanaagsan ilaa uu ka dhameeyey jaamacadda kadib wuxuu u furay mashruuc rootigii ay samayn jirtay hooyadiisa iyo qaar ka mid ah haweenka ku sugnaa tuulada sanadba sanadkii ku sii xigay waxaa sii ballaaranayay mashruuca axmed walaashiisa Shaymaa waxay dhammaysay jaamacadda maalmaha ka mid ah isagoo u socda tuulo ka mid ah tuulooyinkay degganaayeen si uu la soo galo heshiis inuu geeyo rootiga si loogu iibiyo wuxuu arkay ehelkii degganaa tuulada oo wada nin mayda dadka geeskoodana waxaa taagnayd haweenayda uu ka dhintay ninka waxay gacanta ku haysay wiilkeeda yar iyadoo ooynaysa ay ku lahayd waan dayacannay geeridii aabbaha kadib axmed wuxuu soo xasuustay maalintii uu dhimanayay aabbihiisa da'diisuna ay ahayd wiilka yar da'diisa oo kale hooyadiisana ay ku lahayd sidaasi oo kale axmed wuxuu kaloo soo xasuustay hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa qofkii salaaxa madaxa agoonka ma salaaxayo madaxiisa ilaa allah mooye waxaana uu ahaaday ajir tin walba uu ka salaaxo madaxa agoonka axmed wuxuu aaday dhanka cunugii yaraa wuuna dhunkaday hooyadiisana wuxuu siiyey lacag badan oo ku filan inay ugu shaqayso carruurteeda hooyadii aad ay u faraxday waxayna ku tiri dayn ayay ugu tahay waana ku siin doonaa goordhow inshaa allah axmed wuxuu ku yidhi haa deen way kugu tahay laakiin ha ii soo celinin aniga ee sii wiil yar oo dhintay waalidkiisa oo ay macquul tahay inuu dayacmo garabkiisana istaag xitaa haddii aadan garanaynin axmed wuxuu u soo laabtay gurigiisa isagoo allah ka baryayo inay deyntaasi uu gaarsiiyo qofba qof kale caawimaadna ay u noqoto qof walba oo wax u baahan alla weyna wuxuu yidhi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.